kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha qayaga leh ee ku xiran channelka aan ku leenahay barta YouTube-ka ee Kulmis Media. War degdeg ah oo hadda soo dhacaya sheegaya in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay qarar uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku soo gudbiyay su'aalo la xiriira dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa su'aalo ka keenay sababaha dib loogu dhigay dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa, iyadoo ay tahay in markii labaad ee maxkamadda caalamiga ah ICJ ku dhawaaqday in dacwadda badda dib loo dhigay. Maxaa ku dhacay dacwaddii baddeena ee tiil maxkamadda ICJ? Shacabkeenu waxa ay xaq u leeyihiin inay ogaadaan sababta dib loogu dhigay. Sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha dalka xilligii dacwadda badda la soo gudbiyay maxkamadda caalamiga ee ICJ ayaa isweydiiyay in arrimaha ka soo cusboonaaday dacwadda badda inay tahay mid hordhac u ah in meel aan maxkamad ahayn lagu galo dacwadda. Ugu dambeyntii, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabkeeda in ay shacabkeeda ay siiso jawaab waafi ah oo la xiriirta dacwadda badda. Warkan ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sii xoojinaya shaki ku saabsan in dowladda Soomaaliya ay u diyaar garoobayso sidii meel aan ahayn maxkamadda loogu xalin lahaa dacwadda badda. Sidii aan kol hore idinla wadaagnay, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Yuusuf Garaad ayaa sidoo kale qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ugaga hadlay sababaha dib loogu dhigay dacwadda badda. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hore u sheegtay inaysan aqbalayn in mar labaad dib loo dhigo dacwadda badda, hase yeeshee markii maxkamadda ICJ-da ay dib u dhigtay mar labaad ayay dowladduna si sahlan u aqbashay. Sidoo kale dadka qaar ayaa qaba in dib u dhigista maxkamadda ay faa'iido u tahay Soomaaliya maadaama ay ku hoos jirto gardaamo la xiriirta ICJ. Waan kaaga mahadcelinayaa sida aad noola socoto. Wixii warar soo kordha kala soco halkan Kulmis Media oo ka caawin doonta inaad la socoto arrimaha siyaasadda iyo wax walba oo ku saabsan dalka iyo caalamka.